بسم الله أما بعد maanta ayaa anigoo wadada socda waxaan la kulmay wiil saaxiibo aan nahay markaas ayaa wuxuu yiri waxa jirtay arin maalmahan oo dhan aan ka fakarayay aan ka murugoonayay buu yiri xitaa habeenkii si fiican maanan u seexanaynin murug aan ka murugoonayay arintaas oo iiga timid buu yiri kuwa dawladda lacagta dadka siiya ee dalka Holland markaas wuxuu yiri maanta balan ayaan la lahaa saakay salaada subax markaa dukada kadib waxaan aqristay ducada حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كدب أيام وحان آذي أيو يغي بلانتا marka meeshaan u socday waxaan u maleynayay in ay wax ii diidayaan laakiin meesha markaan aaday waxaan arkay ninkii balanta aan lahaa oo ii dhoola cadeynay oo idhahay maxaad cabaysaa kadib meesha ayaan fadhiisanay buu yiri arimahayga ayaan u sheegtay waxa aan ka sugayay wax kale ayaanba meesha la kulma buu yiri waxay idhaaheen mar dhow ayaa lagu bilaabi doonaa waxaaga waana lagu xalin doonaa markaas waan yaabana ayuu yiri hadda ayaan ka soo baxay waxaan isdahay u sheeg Abubakar markuu ii sheegay kadib ayaa waxaan dhahay bishaarayso nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu leeyahay qofkii dhaha subaxdii iyo galabtii حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم تضبجر إلهي سبحانه وتعالى وحول بأوهمنيو وحول بأوكفكريو وحول بأوكمرغونيو وحول بأوكولوليو وكإلاليا إلهي سبحانه وتعالى حسبي الله midka igu filan oo aan tala saaranayo oo dhibaatada iga feedi karo murugta iga qaadi karo waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidaas ayaad leedahay ducooyinkaas ayaad ku waabariisanaysaa subaxdii iyo galabtii sidoo kale walaalayaal ayaanan iloobin inaan aqoon ducooyinkaas si Ilaahay subhanahu wa ta'ala murugteena iyo dhibaatooyinkeena oo dhan uu naga ilaaliyo uuna naga qaado hana iloobin in aad u sifaafisid walaalahaaga الله يحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.